maanta oo ay bishu tahay Abriil 12 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii amaanada ahaa ee Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow aad idinku igu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaaladeydana iga ogolaataan. mabda'aas ilaalintiisa ayay maanta ka tarjumaysaa inaan idin hor imaado istiqaaladeydana idin dhiibo amaanada aad igu xilqaanteen 11 Janaayo 2017 aan idin soo celiyay ayadoo golahan jiritaankiisa bedqabo xubnihiisa oo isqaba oo ay wada goobjoog yihiin. maalmahan dambe waxaa jiray in kuwa alla ka cabsigoodu yar yahay ay baraha bulshadeed ku tabinayeen lacago malaayiin ah layga siistay istiqaalada iyo xilka degida. haddaba anigoo ku taagan nuxurka dhaartaas aan horay u soo maray waxaan si alla ogaan ah u rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in aysan jirin wax dhaqaale ah oo laygaga iibsaday istiqaalada dhiibideeda laa dowladeena walaa dowlad shisheeye ayoo markhaati iyo goobjoog ahaayeen markii aniga iyo madaxweynaha arrintan aan ka wada xaajoonaynay. waxay ahaayeen arrimo muhiim u ah qarannimada iyo jiritaanka dowladnimada dalkeena kuwa u dan ah xasaanada xubnaha iyo xurmada xarunta golaha shacabka. waxaan ku heshiinay inaan si dhow uga wada shaqayno danaha iyo wanaagga guud ee dalka iyo xasilinta siyaasadda dalka. wuxuu ii ballan qaaday in uu igala tashan doono igana tixgelin doono arrimaha masiiriga oo ah dalkeena inaan iska kaashano arrimaha sharci dejinta anigoo xildhibaan ah. ma jiro wax kale oo maadi ah. wixii intaa ka duwan oo aad baraha bulshada ka aragtaan waa haraagii dhaqan xumadii hore oo lagu baabi'iyo sharafta iyo karaamada iyo sumcadda mas'uuliyiinta qaranka iyo culamaa udiinka. waxaan idinka tegayaa hay-ad barlamaani ah oo ay u dhisan yihiin dhammaan laamihii sharci dejinta matalaadda shacbiga guddiyada korjoogtaynta iyo laantiisa maamulka oo ay ku howlgalayaan howlwadeenadiisuna yihiin kuwa karti iyo hufnaan u leh una badan jaamiciyiin tababaran. waxaan idinka tegayaa barlamaan xiriir shaqo iyo iskaashi la leh dhammaan golayaasha xeer dejinta dowlad goboleedyada Soomaaliyeed. waxaan idinka tegayaa barlamaan xiriir shaqo iyo iskaashi la leh dhammaan barlamaanada adduunka. waxaan idinka tegayaa barlamaan heshiisyo is-afgarad iyo iskaashi la leh barlamaanada dowladaha xiriirka walaaltinimada gaarka ahna la leenahay naga dhexeeya. waxaan idinka tegayaa barlamaan leh guddiyo saaxiibtinimo gaar ah la leh barlamaanada dowladaha naga dhexeeya iskaashi siyaasadeed goboleed carbeed afrikaaneed iyo khibrad wadaag khibrad isdhaafsiga barlamaaniga. waxaan idinka tegayaa barlamaan leh xusuuseed hay-adeed ama institutional memory loo yaqaano oo howlihii uu soo qabtay ku kaydsan yihiin dukumentiyo qoran iyo kuwa maqal iyo muuqaalba leh lana heli karo xildhibaan walba wixii maalin uu ka yidhi golaha. waxaan idinka tegayaa barlamaan baraarugsan oo karti iyo aragti wadaninimo leh oo soo shirgudoomiyey qadiyado badan oo qarameed oo culus oo masiiri ahaa dalka lasoo gudboonaaday ay ka mid yihiin arrimihii soodimaha badda. waxaan idinka tegayaa barlamaan shacbigu u dhego nugul markii uu ka danqado qadiyad uu la welwelo golaha xal u helidiisa usoo qaylo dhaanto. waxaan idinka tegayaa barlamaan ay u diyaar yihiin mashaariic dhismo cusub ee xarunta golaha ummadda oo hoy u noqon doona barlamaanka federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal iyo xarun kale oo ku meel gaar ah oo u noqon doonto xarun ku meel gaar ah golaha shacbiga oo kusii shaqeeyo laguna dhisi doono villa Hargeysa kuna kici doona malaayiin dollar lana filayo in dhismahooda ay dhamaadaan muddo 2 sano soo socota gudahood. dhismooyinkan oo bilicda Muqdisho wax weyn ku kordhin doona
baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyaddana uu si buuxda u dhaxli doono waxaan idinka tegayaa baarlamaan shacbiga Soomaaliyeed ku faani karo inkasta oo howlihiisa iyo maamulkiisa ay baarlamaanada dawladaha Carabta iyo Afrikaanka la tartama qaarkoodna ayba majabsadaan anigoo aad u dhiirigelinayo iskaashiga anagoo aad u dhiirigelinayna iskaashiga u dhaxeeya laamaha waaweyn ee dawladda haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay'adaha dawladda iyo kala socnaanta awoodaha waayo haddii isku xadgudubka hay'adaha dawladda oo aan la xakameyn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam kala taliye iyo takrifal awoodeed oo aan cidna korjoogteyn karin saa daraadeed waxaa iga dardaaran ah inaad aad u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbin